رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم marka hore horta ilaahay baynu mahadnaqaynaa allaha aragga iyo maqalka iyo caafimaadka iyo arsaaqda iyo amniga iyo islaamnimada allah ina siiyay weynta cudu nicmat allah la tuhsuha ba ilaahay ilaahay wuxuu nimcooyinka si aad tiraadaan tiriya oo sheegay ma tiri kartaan ba ilaahay mar labaadna waxaanu idinka mahadnaqaynaa sida wacan ee sharafta leh gobonimadu ku jirto ee aad noo soo dhaweyseen ee aad noo istiqbaasheen ee waxa weeyaan aan noogu soo ururteen ayaanu mar labaadna idinka mahadnaqaynaa marka saddexaad waxaanu idinka tacsiyadaynaynaa oo idinka tacsiyadaynaynaa mashaqadii iyo dhibaatadii dhacday ee lagu dhintay ee lagu nafwaayay ee lagu dhaawacmay ma yahay mid labada beelood oo ku khusaysa mid muslimka iyo Soomaaliland oo khusayso laga wada naxay bay haydeen ilaahay wuxuu dhintayna ha u naxariisto waxa weeyaan ku dhaawacmay ku dhibaatoobayna ilaahay subxaanahu wa ta'aala isagu waxa weeye ha shaafiyo guud ahaan waa idinka tacsiyadaynaynaa walaalayaal arrinta labaad saddexaad afraad ee aan idinku dhimi waxa weeye walaalayaal qadar Allahu ma shaa facal wixii dhacay way dhaceen shaygan baana ka adeegay wa qadar Allahu ma shaa facal in walaalayaal waxa weeyaan jazaakum Allahu alkhayr fidnadu haday mishiinadu qarxaan mawdka loo siman fidna haday dhacdo caabud iyo caasiba way saameynaysaa fidnada maanta koomka taala ee ah juuc wal khoof gaajada iyo cabsida maanta taala waa fidnada iyo dhiiga walaalayaal daatay labadaba ilaahay ay naga kor qaado sida laakiin walaalayaal wixii dhacay way dhaceen dad ehelo walaalo isdalo dhaleeyo ah ayaa shaydaanku kala dab qaaday oo waxa weeyaan dhibaato ay ka dhaxdhacday dhibaatadii dhacday ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaynu ilaahay u celinaynaa toobad iyo istighfaar in ilaahay naga cafiyo wixii dhacay waxa kale oo la doonaya maanta walaalayaal jazaakum Allahu alkhayr inaynu isu dardaaranno oo ku kala tagno war wixii dhacay wax dambe ay dib dhici war qolo waliba amniga ha ka shaqeyso war umusha waxa u dana ayaa ilmaha u dana war raggogashi waa nabadda war nabadda naas la nuugale war walaalayaal ibtirada iyo fidnada iyo colaadda dadka walaalaha meesha wada yaala wax allaala wax yeelo iyo dhibaato iyo khasaare ay nagu keento mooyaane wax allaala waxay noo soo korinaysaa ma jirto sida laakiin walaalayaal ragaha markuu nabadda doonayo kabuhu afka ku qaadi jiray isagoo nabad jacayl iyo walaaltinimo iyo inaanay fidna dhicin doonaya kabuhu afka ku qaadi jiray haday maanta af ku qaad noqonayso nabadan colaadi ka dambayn inaad qaadataan oo nabad qaadataan oo walaaltinimo qaadataan oo maxabba qaadataan oo iscafi qaadataan oo sabir qaadataan ayaanu idinku nimi oo idinka doonaynaa oo aanu doonaynaa inaanu salaadiintii iyo dadkii waxa weeyaan dhaqanka iyo nabadgelyada xumaamada iyo koofiyada u qaatay iyo Soomaaliland baynu idinka gaarsiino inaad tihiin dad galiyiga oo maanta nabad raba oo dadka walaalahooda colaadu ay dhex martay iyagu waxa weeyaan maanta nabadda qaadanaya oo walaaltinimada qaadanaya oo tolahan islaamnimada qaadanaya inaad tihiin oo waxa weeyaan jazaakum Allahu alkhayr wixii dhacay way dhaceene wax dambe ay idinku ka taxadirtaan dhiga halkiisa loogu yimaado halkeeda way istifaaciya laakiin inaydaan bartaa dhaafin inta waxa weeyaan la idin imanayo gobasha la fidinayo mashaqadu halkay ka dhacday inta waxa weeyaan ummadda lagu aslaaxinayo oo la isugu keenayo lagu walaalaynayo ina waxa weeyaan ballan qaadaan hadaa odayaashii iyo beeshii maanta halkan aan ugu nimi beera beerweyso dadkii aanu beerweyso ugu nimi hadaa tihiin iyo deegaankii iyo dadkii mashaqadan waxa weeyaan ay ku timi hadaa tihiin ina ilaahayna waxa weeyaan ballan la gashaan oo ilaahay buu ballan qaadaan inaydaan cidna dulmiin cidna dhigooda daadin sabirtaan laana qad walaalayaal sabirku waa shay qaali ah waa shay qaali ah Salama ayaa ninkeedii waxa ku jira caawa casho ku soo dhigi maayo ilaa aad ii sheegto waxa Nabi Maxamed ka soo maqashay mooyaan sallallahu alayhi wasallam dabeetana wuxuu ku yiri ninkeedii Abu Dalha oo ahaa asxaabi aad iyo aad jaliil ah wuxuu ku yiri maanta waxa nabiga ka soo maqlay markay dhibaato iyo geeri ku timaado ee ibtilaa ku soo waxa tira inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un allahumma ajirni fi masibati wa khuluf li khayra waxa la yiri Salama Abu Dalha mawdkii ku soo xaadiray markay naftii ka haaday way dul fadhiisato waxa tira allahumma ajirni fi masibati wa khuluf li khayra ilaahu masiibadan aad ugu katay wax ka khayr badan ugu bedel haddana il dumar bay niyada ka jiri oo mukal baad ninkaaga cid ka khayr badan helaysa gabadhii sida niyada ka jiri ilaahay wuxuu u guuriyay oo guursaday nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ummatul mu'miniin ka mudqatay marka walaalayaal sabirku waa shay qaaliya
هذه إنسانك خلدمه أو خلدك خلدمه وخلد كلا كصحة بقول شيء رضم مخلدنا ليه خلد كاسون أول اللي بتشوفته يعني سيدا لا تقدر ولا ليال إلهي نبده ينور للجحر حين قد تلا الله ونحرسه وحين قبل كلا الله الشافي إلهي علاد يا أبارت يا في النظر كون كنت الله إلهي سبحانه وتعالى الله ينبكر قاضي أبارت الله ينبكر قاضي علاد الله ينبكر قاضي وحاصل ما أنت وحويا بهاينة يا وحي كون كاتشوجا يا مخلوقات كوجا عند ما أنت لقوا عقابة يا وحويا عقاب كودي سبض كروا إنجوي وإنسان كوي لأن إنسانكو إلهي وحول كبق فيدنا أن كيس ما يخاص كنا ورني فيدنا هذا يدعو كيس ما يكون كوبناته هذا يكون كوبنان له ما بيننا ما يسوق عليه لكن وما تقول لنا يوضع سلامين الساعة سد دورها بين بنا نقول جلي مقالة اللي لا در الرويني ما تدي عرورتي هذا أكل هيدا الأرجح ضب على الجلي ما تدي عرور أي ضب وصوري مركز سهل كي لقيمي قال شو يهرات يدول الآن أنتوا واحد هاي ندرس كودي هاي أنتوا ندرس كودي هاي غير نام بارو كبر حنا أنت بقى إن دريال يدوا يبلا لا سوق جارو وحاي نفرين ونذا إيوه هديه اللي بواحد كان وانو قاضن ما شاء الله هل كان واحد شوقا فقن شوقا جودي دي بقى فردي ماشي أهان شفتي الدومي بقى شوقا وايل كيدي إنك صدقت كودي ضد ذني مغني وايل كيدي بقى فردي إننا نبض قاضن أو سويدي محيا هاي توي على عدة شوش إنه نبض جليو دوننا وانو سوي هراني سويدي ما شاء الله نبض جليو وانو قاضن وأقول له وحنا فرتين وانو قاضن وانو أقول له هاي بقولك بس شني سكاش ما أنا أقول له وحوي وانو قاضن يدي كان ودي كان وانو شيء ما شاء الله محيا هاي توي wixii de marka ay noqoto amnigeeda gaarno wixii de cabasho aanu tabanayno waanu ka hadlayna صح intaasaan waxaadayaasha iga dambeeya oranaya intaasaan kaga baxaya waanu nabadgelyo ma wax diilaya jira waanu soo dhaweynaa wadada martida noo ah wafta ka yimid ceelgaabo iyo burco safarka ay soo mareen darta walaalahooda u soconayaan ilaahay ka saaysiyo inta ka bacdi halka kan wax la yiraahdaa goobtan waa goobta la yiraahdo beerweeso waxa isugu yimi oo la keenay dadkii mashaqadu ka heshay darweyne gaar ahaan ragii baa jooga haddii raggaasi ay joogaan ilaa iyo maalintii mashaqadu dhacday si kastaba ha u dhacdee nin ka baxay oo ma garanaysaa ama dulaala tegey ama duulimaad tegey ama gaada tegey ma uu jiro ilmana idinka ka soo horeysay oo noo timina way jirtay halkan aan ku sii wada hadalay waanu ka ajiibnay nabadgelyada waxa dhacaa ma jiraan waanu ognahay nabadgelyada inay nolosha koobaad tahay annaga nabadgelyada doonayna oo diyaar u ah oo rabna nabadgelyada ma sha Allah kalisagu waa meeshiisa hadii kalisagu waa meeshiisa hadii dalna kalifo taa ilaahay u taala laakiin anagu waciga haddan jooga hadii aanu shirnay iyo hadii aanu wada hadalay iyo hadii aanu isu nimi waxaanu go'aan ku qaadanay nabadgelyo hadaanaanu weynay nabadgelyo hadaanaanu waayin inaanu nabadgelyo qaadano idinkana waxaanu idinka balan qaadaynaa kolleydii odayaashii hore hadalka dhameeyay odayga horeeyay hadalka dhameeyay isagu hadal waa jiraade goobta marka la sii yimaado